haddaad dhinacaaga ku aragto walaalkaayo la gowracayo aanad waxba u qaban karayn, walaalkaayo guwantanaamo lagu ridayo ciidaba u hadlaynin, walaalkaayo halka naftu kasii baxaysoo liita, dumar iyo caruur la gowracayo la biraynayo, bam ku dhacaya, masaakiin meel tuban, waxaa duni la gubayo, ma mushkila, ilaahay wuu arkayaa subxaanahu wa tacaala. nebi maxamed baa noolaa iyadoo saxaabadiisa lagu dhinac tumayo, asaanu markaa awoodin, se mabda'a kama tanaasulin. makuu joogay iyadoo bilaal yan inta cadceedda la dhiga dhagxan dusha laga saaray, istaa maanta dunida la isugu toorjargareeyo ayaa loo toorjargaraynayay. inta cadceedda la dhigaabaa dhagaxlaabta laga saarayo la tumayay, inta hoggaan lagu xidhaabaa caruur yaryar loo dhiibayo ay magaalada maka kula soo wareegayeen. nebi maxamedna waa noolaayo waa joogay, saxaabadii rag waaweyn oo kaloo ka mida baa joogay. dhibta iyo kadeedka markii ragga badh ka soo cabtay, xadiidka bukhaari muxuu sheegaya, dhibta iyo kadeedka markii laga soo cawday ayaa wuxuu leeyahay khabaab ibnu larati nabigaan u imi calayhi salaatu wasalaam wahuwa mutawasidun burdatan wahuwa fii dilli lkacba, hooska kacbada isagoo jiqilaystay oo halkaa jiifa baan u imi buu leeyay nabiga calayhi salaatu wasalaam. markaasaa waxaan idhi buu yihi waqad laqiina min almushrikiina shidda, iyadoo aanu kala kulannay buu yihi nimankii gaalada dhib badan ayna qabsadeen. faqultu waxaanu idhi buu yidhi yaa rasuula allahi alaa tadcu allah wa fii bacdi riwaaya alaa tastansir lana, ilaahay rasuulkiisiyo maad ilaahay noo baridin, bal waxaana haysta kadeeda dhacaya. saxaabiga kani wuxuu ka cabaadayaa waxa kadeed meesha ka taagan, cidduu u cabanayaana waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed qadiyadaasi siduu u xallilay, wuxuu ku xallilay inuu baro dadka taariikhda. war balaaya maanta kow maaha buu nebigu leeyahy, taariikhda barta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. iqra'u taariikh, dunida wixii ka soo dhacay iyo sida rag u soo jabay iyo sida rag u soo guulaystay iyo waxa isbedelay, war taariikhda barta buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. sida daraaddeed saxaabiga kan wuxuu ku yidhi nebigu, faqacada wahuwa muxmarun wajhu, waa soo fadhiistay nebigu isagoo wejigu casaaday oo cadhaysan. فقال وحو نبي عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه. وكو يدينك يدينكو الرئيب النبي عليه الصلاة والسلام لقد كان من قبلكم، اللام الموطأة للقسم وقدر حرف التحقيق النبي استعمال، والله ما قدرت حقيقة وحاهب النبي ليه كو يدينك يدينكو الرئيب قار كمده ayaa fargeeto bir ah diirka iyo lafta iyo hilibka lagu kala saarayay oo lagu yani torture lagu sameeyay biro lagaga guro hilibka oo lafaha la muujiyo. maa yasrifuhu dhalika can diinihi, waxaa soo dhami diintiisa kamay celinayn buu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. wayuudacu lminshaaru calaa mafraqi ra'sihi fayushaqu bithnayn maa yasrifuhu dhalika can diinihi. waxaa dhacaysay buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam mid in ta god loo qodo lagu rido, mishaartan looxa lagu jaro hagso, mishaarta caadiga looxa lagu jaro inta madaxa laga saaro in la mishaareeyo oo laba loo kala gooyo buu nabigu leeyahy. qof bini aadama qiyaaso inta halkaa mishaar laga saaray laba laga dhigayo oo laba loo kala gooyo buu nabigu yidhi fayashaqu bithnayn maa yasrifuhu dhalika can diinihi. arrinkaasina diintiisa kamay celinayn buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. walayutimanna allahu hada alamra xataa yasiira alraakibu min sancaa'a ilaa xadra mawt maa yakhaafu ila allah. وفي بعض الروايات ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، وفي بعض الروايات ولكنكم تستعجلون. nabigu wuxuu leeyahy calayhi الsalaatu wasalaam taariikhda daraaseeya buu leeyahy saxaabigan u yimay cabanaya. war halgamadii idinka horreeyey buu nabigu leeyahy dad baa inta la qabto lafta iyo hilibka bir lagu kala saarayo lagu fogayay ilaa iyo lafuu soo baxayaan. war dadkii idinka horreeyey dad baa inta la qabto buu nabigu leeyahy la miishaaraynayo laba loo kala goynayay, waxaasoo toorjari ku dhacayeen. waxaasoo dhami dadkan mabaadi'dooda kamay fujinaynin, diintooday haysanayeen. sidaa awgeed buu nabigu leeyahy
إلهي ما كل دارتي إلهي دين تتنور لما يستري دونا إلهي يقفك الراكب كاهي وكلا الصعود الصنعي حضر موت إسقو أن عدنا وكبقين ألم ويانا سبحانه وتعالى إيا إنو ييغا كعشدا أرقي سمو يعني ولكنكم تستعجلون والنبي محمد لي عليه الصلاة والسلام لقول نقوي إذنكو وهدك دقي سامبو النبي قول إذنك هدك دقي إذن هيا إذنك هدك دقي إذن هيا إلهي دق دق دتك مدد دشيان وأكو ويا هرو وقرقار لما يدعه وأكو عوضة موتا برها اللغو فجأة موتا قوانتنا ما اللغو قرية مركي بنسر وروينا النقطة ضد نصرجا أعن تماين لسيو وهنا بسلاطة نقول كرتا قفكي بني آدم كهجامين كاري لها وهنا النقطة قفكي ضدك وادي كاري وهنا النقطة قفكي مبدأ كان ضاعتك كان نقول كاري لها وهنا جادا حد لغوب بسلية مسؤوليات كأنت لاقي عالمي قاعد قاضي كرتو مسؤولية دي تو مسؤولية عالمية وعدي ماها ومسؤولية عالمية والله الربا أمض إن له جاميو ولا سيدي كرو سيدا أوجد جيري يبي أم بالس كله فطي والله أنت يضمن ولا وحبا عيد هيلين ميسو إلهي بأوحين ليه سبحانه وتعالى ورهرتين تاريخ ما دوني دا تكتيبه إلهي ليه سنن أيا ضريري دول كمرو تاريخ الدراسية با إلهي ليه داد كيدين كهرية قابكي وحقبتين أركا إيا كوي قوقية كبرية اللبينية عربتو دي وحي كودة ميسي أيا كان تاريخ دا إمسا قرآن كورمية إمسا قومو لهلاقا إلهي قرآن كورمية إمسا قومو تشبيبا كورمية كذلك قرآن كو إمسو النبي اللي دي ليك كورمية فريقا تقتلون إلهي قرآن كو الماما يا رب إسرائيل لي النبي دي بدنا وابيني سي بدنا واب الله يسيب بالي إمسا النبي اللي دي لي نبي معين إلهي كتشعلية باكرة دمر بالا لا يعرور بالا لا طبعا وضد مسلمين ولا ظلمي ولا لا لكن دقدقتين إلهي كما دقدقه إلهي السنن بودتشي لو قلت لك قال نلاشو إني راعضه إنك أبهن إني السنن كاسي قواعد نلاشا إني نفهمنه دمتنا إلهي وحين إليه سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تهنوا ورها اللي دنينو هتشابين با إلهي لي والله يقى حوق بطيها كتشابين هنمرقوننا وحد نعيها كم مرقون با إلهي لي وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إنكم با عاقبة الضنبية لن دروك عن سرين إياه هذا مؤمن تهم با إلهي لي سبحانه وتعالى مثل لنا إلهي وينوشي قوي حلي إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هدي اللي دين دبي هذا يما مبر واقعنا با إلهي لي يدبت وسوقا ده إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله هدي إذن كان نبيدين على الشيء إيه كان دبت وهلا شبا إلهي لي وتلك الأيام نداولها بين الناس وما المبا إلهي لي يددك أن أكلا وروريتشيو أكلا بدله لكن بدلك السبب ليه سيدة درادد إلهي وحليه سبحانه وتعالى إلهي وحرباين كوينا مؤمن كنبطا أموتشيو منافقين تأيي قال الراعي يبلي باسكونين يددك ومقضان marka nabadda dadku waa wada muslim masaajidka la wada jooga waa ka kan laakiin dhibta iyo mushkiladu markay dhacdo ayaa waxa soo kala baxa dadka iyo quality-gooda iyo macaadinta ay ka kala sameeyeen waxa soo baxa mu'minka dhabta ah waxa soo baxa gaalka dhabta ah waxa soo baxa mujrimka dhabta ah waxa soo baxa munaafiqa dhabta ah waxa soo baxa kamaadiga xoolo raacuna dhuuri qaata waxa soo baxa noociyad badan oo aanad marnaba barateen ayaad baladu markay dhacdo baranaysaa baa Ilaahay yiri iyo qaar idinka idinka mid ah shahiid laga dhigo manzilo sare la gaarsiiyo waxa kala soo baxa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala mashaakilka ururida gaalada qaar baa laftooda la rabaa boosas naareed oo waaweyn oo Ilaahay inay buuxsadaan dambiga inma numli lahum liyazdadu ithma qaar man dib ugu dhigaya baa Ilaahay inay dambiga badsadaan oo iyana heer sare oo naareed la rabaa inay galaan إذنكم هم ملايين با إلهي لي أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين إذن نبت بدنية مشاكل كبدني وين أنا إن إلا سنين إن سنن نلاش كم دي شرو سنن كأي كم تهاي ولا يمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين إن الله الربا إنه يمتحامه
dadka muuminiinta oo soo kala saaro dahabka marka la soo qado fiicnadiisa iyo wanaagiisa wuxuunbu soo baxaa marka la dhalaaliyo daan dab la saarin oo la dhalaalin qashinku kama hadho fitanka iyo mashaakilku waa la isku dhalaalinaya qashinkaa la reebaya waliyumaxisa maa fii quluubikum baa ilaahay leeyahy waxa qalbiyadiina ku jira la itixaamaya liyamiiza allahu alkhabiita min atayib kuwiina xunxun iyo kuwiina wanaagsan baa la kala saaraya waxaad ogaataa ummaddu imisay cilal ku jira imisaa dad dukhalo oo soo galay oo kale ku jira imisaa kudaafad iyo xuman dhex yaalla waxaan baa la kala nadiifinaya waxaana lagu kala nadiifiyaa mushkilaadka iyo dhibta tan idan waxaynu u baahanay inaynu daraasayno sunanka oo si fiican u fahmno waxaynu u baahanay inaynu garanno waxaynu u baahanay kow inaynan quusanin nolosha lagama quusto muxaawalaadku inaanay istaagin wanaag in la raadiya inay laabud noqoto laba waxaan ka hadlayaa inugu adkaynaya inaynu mabaadi'da islaamiga ku sugnaano mahma kaanat iduruuf si kastoo dhibtu u badato mashaakilku u bato si kastoo caalamkao dhami uga soo hor jeesto haddana waa caqiide iyo diin iyo mabda'i ilaahay soo dejiyay inaan ku dheganaano oo naftu inagaga baxdo saddex waxaan tilmaamayaa noloshu waa halgan halgankuna wuxuu u baahan yahay dhib iyo mashaqo iyo mushkilad baa imanaysa in la sabro oo la adkaysto oo la dulqaato waan lagu talagelin in xalwad la isku siinayo meesha in dhiig iyo dhibiba ka iman karto qofku inuu isku dayo mushkilaadka inuu u sabro afar waxaan isku dayayaa inaynu eegno arrintaa xusnu dhanni billaah aw hiqati billaah ilaahay inaynu kalsooni ku qabno oo mahmaa gaal isu tago ama colaad la abuuro ama cidi isu tagto ilaahay haddaad kalsooni ku qabto inaan lagaa guulaysanaynin raabican waxaan isku dayayaa inaynu eegno taariikhda bini aadamkee soo jireenkaa inaynu ka faa'iidaysanno waa la jabi jiray inaga maaha kuwa ugu horreeya jabay dowladaha baabi'i jiray maahateena tii ugu horraysay baaba'day baa la layn jiray manihin kuwii ugu horreeye la laayay taariikhda inaan dib u milicsanno oo eegno si aynu ugaga faa'iidaysanno nolosheenna soo socota gaar ahaan taariikhdii islaamiga ahayd shan amase lix alcamal da'uub shaqo joogta ah inaan la nimaadno oo aan wax la qabto qadaayadkaasi waxaan u arkayaa inay yihiin aamaasheennu waxay ku salaysantahay waktiga hazaa'imtu dhacdo dadku ay jabaan ama dhibtu qabsato ama mashaakilaadku qabsado oohinta iyo baroortu wax ma tarto iyo waxan baa dhacay iyo waxan baa xumaaday iyo kan baa xumaaday nabi muxamed calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ayaa la jebiyey dagaalada ka mid ah iyagoo dagaalkaa kii ka horreeyey jawlo fudud ay ahayd oo markiiba ay cagta mariyeen beder iyagoo yar oo tiro yar oo wax badan ahayn oo gaaloo dhan isu urursatay oo caynka ayaa ilaahay nasri degdega siiyo markiiba cagtay mariyeen iyagoo iska rumaysanba ragga badhaysleeyin mala haddaa gaalo isku soo baxdaa ma cagtaa marin doontaan ayaa kii labaad la galay intii hore way guulaysteen laakiin waxay u muuqatay in iyaga la jebiyey oo 70 raggoodii ugu waaweynaaya la dilay waa dagaalkii uxud waxaa dhacay dadkii munaafiqiintii inay iskaba noqdeen kunbuu ciidanku hayo 300 munaafiqiintii inay ka go'een in laba taa'ifo oo qabaa'ilka ka midii hadalkii iyo wixii la shaki geliyay waa in taa'ifataani min yani walaqad hamma taa'ifa ilaahay wuxuu qur-aan ku tilmaamayaa koox dadka ka mid inay ku hamiday inay dagaalkaba ka insixaabto ka baxdo waxaa kaloo muuqatay in dagaalkii qayba ka mida ay ku jabeen oo 70 raggii ugu waaweynaa uu ka mid yahay ama dagahalyanadoodii rasmiga ahaa ee xamza uu ka mid yahay lagu dilay waxaa ka muuqatay in nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam la garaacay ilka laga jejabiyey koofiyadii madaxa ka gashay nabarra halisi ku dhaceen salaadii uu fadhiga ku tukaday oo uu kici kari waayey buurtii yarayda markii dambe ay u baxayeen uu fuuliba kari waayo oo loo fadhiisto bale waxay gaadhay xad dabeetana dhawaqu uu yeedho
la yidhaahdo nebigiiba waa la dilay bal waxaad qiyaastaa ciidan dagaal galayo raggii waaweynaana la laayay marka dambena la yidhi nebigiinni iyo rasuulkiinniiba la dili yani haziime ka weyni ma jirto markaa yani niyad jab ka weyni waa harbi nafsiya nin markana laga gacan sarreeyo dhib badani soo gaadhay haddana warku uu yimi odhanaya adiga waxaa laga yaabaa ciidan haddaad ku jirto oo dagaalamaysaan oo meel joogtaan oo inta laydin laayo marka dambe la yidhaahdo madaxdiinniina waaba la qabqabtay ama waa la laayey madaxdii ciidanka wadatayba gebigoodba waa la laayay la yidhaahdo dee ciidankaasi wuu jabaa waanu baaba'aa halka waxay maraysaa saxaabadii oo la leeyey maaha madaxdii iyo waxa weeyaan waa nebigiinni iyo rasuulkiinniina la dili dabeetana haziime nafsiya dadkii ku dhacday qaar cararkii madiinay galeen uxud intay ka yaaceen bay orod ku galeen maxay madiina qaar way iska fadhiisteen dagaalkiiba way iska daayeen meelahaas iska fadhiisteen sacad ibn rabi waa saxaabigii waa kii soo marayay iyadoo cumar iyo koox meel iska fadhido markaasuu yidhi war maxaa meesha ka qabanaysaana markaasay yidhahdeen nebigii la dil oo nebigu wuxuu ku dhintay ma idinma ku dhimataan buu yidhi yani xad ay meel iska fadhiyaan oo dagaalami kari waayaan xad badhiyaaco xad yani ciidankii wuxuu noqday iyo mujtamacii waa kala lumay wadciga caynkaas iyabaa ilaahay qur-aan soo dejiyey subxaana wa tacaala oo qadiyadda dan kaga warramayo ilaahay baa wuxuu leeyahay wamaa muxammadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi الrusul afain maata aw qutila انqalabtum cala acqaabikum waman yanqalib cala caqibayhi falan yadura allaha shayئa wasayajzi allahu shaakiriin ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل والنبي محمد ميو يهيبا إلهي لي سبحانه وتعالى الرسول هرتي الرسول لطقين موياني والهدي للديلو هدي ودنتو أما سل الدلميات شبيسان با إلهي لي سبحانه وتعالى مبادئ دينا وكفو غيسان يعني وهلا تلمام يقفك مسلم كاي هدي عيدا كيسو بابو haddii madaxdiisa la laayo haddii waddankiisu dumo haddii dowladnimadiisa laga xoog bato inaanu mabaadi'diisa ka fuqaynin dowlad iyo meel ka sokaysa daaye nebigaad rumaysantay haddii la dila baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala nebi moxamed oo aan nebigaad rumaysnaydeen hadduu dhinto ama se la dilo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala inqalabtum calaa acqaabikum ma gomadiinna ka laabmaysaan ma dib baa u cararaysaan ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا عدي قمديسة كلا بطبع إلهي سبحانه وتعالى إلهي وحبرني بما أيه حبيالي كريم ما أيه وسيجزي الله الشاكرين كو سيو أدكيستأدر رئي وحسكد عيا مبادئ وكل الجنادة إلهي سبحانه وتعالى كواسي وهو أبا القذى يا إلهي سبحانه وتعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين إلهي وحلي النف ولبو حيقو أيسا وقت قيديو أما النبي هالنغضة أما الرسول هالنغضة أما النوين هالنغضة أما ملح هالنغضة أما قائد هالنغضة وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا warnaf walba kitaabkeedu markuu gaadhaa bay go'aysaa baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala ninkii adduun doonayowna waxbaanu kaa siin haddaanu doonno ninkii aakhira doonayowna waanu ku siin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala wasanajzi shaakiriin arrinku markaasi waxaa layna baraya qofka mu'minkaahi inuu mabaadi'da ku dheganaado ee inaanu magacya ku dheganaanin لا محكمة إسلامية ولا قائد مسلمة ولا مدحتوية ولا دولة ولا كان قفك مؤمن كي وحو كل جاي مبدأ آس انتو هرقل يانا قرقر كو هستا ضد كنا وقيريون يانين صرا يانين هوصبا النبي يالا لاي نبيه أيالا لاي إذا وحالا ينبرا يانا نهزائم تأقبلين إننا نسليبين إننا نقوصنين حتى النبي وهدور لنتو dhul lagaa qaaday iyo meel lagaa qabsaday iyo taada xataa haddii nebigaad rumaysantahay uu dhinto amase la dilo inaanu qofka muslimkiisi dhiibin dadka ducaadda waxa looga baahaya markaa inay dadka dejiyaan balaaya ka waranka inaad dhaafto halkaa lagu jabayo halkaa layseeriyaday waxaas war maaha
warku waxa weeyaan dajaal markuu soo baxo ilaahay wuxuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam xadiidkii tirmidi ibn maaja warinayana sheekh albani uu saxiixa ku tilmaamay yaa cibaad allahi ihbutuu warka daacigu waa kaa addoomaha ilaahayow sugma waa dajaalo akbar fitna caalamka iman doonta ah ayay dadka ilaahay rumaysanaa markii lagu dhawaaqa la yidhi dajaal baa soo baxa waxay odhan doonaan yaa cibaad allahi ihbutuu ama maraykan ha noqdo ama mid ka yar ha noqdo ama beledu intay doonto ha leekaato qofka mu'minka waxa looga baahan inuu yidhaah yaa cibaad allahi ihbutuu ilaahay addoomihiisiiyow sugma waa taariikh ilaahayna barayo dhacdada tani uxudi waxay u dhacday inaynu wax ka baranno waa dadba ilaahay kuugu jeclaayo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaamka waxaanay ku dhacayaan waa mujtamac kuwii ugu weynaa oo ah jiili saxaaba kuwa dhibtan iyo kadeedkani maantadan haystee qur-aankani ka soo degaya waa jiilkii kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaasi ilaahay leeyahy waxaa tiin dad kuwii u khayr badnaa ee ilaahay dadka uu soo diro uu soo saaro hada aljiil haddii sawirkani uu ku dhacayo innaga waa inaynoo noqotaa deris laabteenna ballaadhiyo suga bushaaro 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 haddii safar loo geli jiray barashada qur-aanka hadda waxaad ku baranaysaa qur-aanka iyo culumta shareecada adiga oo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqo dugsiga online-ka ah ee barashada qur-aanka kariimka iyo shareecada islaamka duruusta uu sida taxanaha u dhigo waxaa ka mid ah barashada qur-aanka kariimka ah iyo higaada culumta shareecada islaamka tarbiyadda awlaadda iyo luqadda carabiga haddaba isqoristu waa ay socotaa fadlan hore ogaad wixii faahfaahina kala xidhiidh nambarada shaashada kaaga muuqda hamogaanin dugsiga online-ka ee barashada qur-aanka kariimka iyo culumta shareecada ee daarul hijra